رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبي الله محمد بن عبد الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم وأهلا وسهلا أيها الإخوة والأخوات وجلسات كني أنا واحد ليني وانوين كبش الصون كأن ربنا نرشة نديب وغفيرنا وحلقة إني سجالات وحنا واحد لينا أمانة قفك مسلم كرب سبحانه وتعالى وديبه يجود الشدة هذا قفك مسلم كواجب كسارا إخواني وأخواتي في الله وحيوم مقتام مسألة أمانة اللي يدهدو لبجر بينا نكو خلدني وأمرك كواذا أمانة سخلدن بأنه معنا ينايو وحي هيد وحكير أيام كم معنا أمانة وأفقنا أمانة وحنو أرجنا هبا waxga kala gaasiran oo kala dhiman bay noqdeen dhanka kalena amaanaadka rabbi subhanahu wa ta'ala inoo dhiibay intii baan amaana u naqaanay baan hadana iyadiina inaan gudanahay ay nagu sii adkaatay aan ka bilaabay meesha aan isleeyahay mafhuumka amaano qofkaani amaana male iyo qofkaani amaanada ma ilaaliyo iyo amaanada ma guto waxa laga yaabaa inaanu ku macnayno qayb yar oo amaanada kamid ah oo tan culimada ay yaqaanaan alwadaa'i hadii qof uu wax ku dhiibto wixii uu ku dhiibtay oo inaad ilaaliso inuu wixii uu ku dhiibtay uu kugu yimaado oo wixii uu ku dhiibtay aadan ka kala gaasirin ama aadan ka kala khiyaanin intaas baanu amaanadii ku soo koobnay laakiin sida dhabta runtii waxa weeye mawduuca amaanada ee ku qaridan akhlaaqda qofka muslimka laga rabo ee ka soo horjeeda mas'alada khiyaanada loo yaqaano cagsiga ku ee ka soo horjeeda waxa weeye inta uu ka guda weeyahay oo uu ka balaaran yahay markii gudashadeedii la gaarana iyana waxa weeye waxa laga yaabaa inay u ekaato wax la kala gaasiro ama waxa weeye amaana gudasho xumadii qudheediiba in hadana si kala gaasiran loo sii macneeyo dhammaan mas'uuliyaadka rabbi subhanahu wa ta'ala u dhiibay qof muslima oo hadana mukallaf oo qaangaar ah oo la xisaabinayo culimada muslimiintu waxay yiraahdaan waa wada amaano المسؤوليات كلها عبارة عن أمانات واحد من مسؤوليات يا رب سبحانه وتعالى إنه ديبي نلقرب إنا نجودنو لما أنتود أمانة أن محبار صنعي أمانة أن ودسدنو وأيتها إنا نجودنو وأن كسب بحنوي نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحا خطبتنا يا مواعيدنا iyo markaanu siirada nabiga sallallahu alayhi wa sallam aanu ka hadlayno aanu niraana nabiga sallallahu alayhi wa sallam amaanadii loo dhiibay wuu gutay ummadaan intii looga baahnaa wuu naseexeeyay nabiga sallallahu alayhi wa sallam waxa dunida laga qaaday isagoo amaanadii loo soo dhiibay gutay waxaan rabaa inaan macneeyo maxaa loola jeedaa nabiga sallallahu alayhi wa sallam amaanadii loo soo dhiibay ayuu gutay oo asagoo amaanadiisu gutay buu dunida ka tagay warka maxaa loola jeedaa waxa loola jeedaa nabiga sallallahu alayhi wa sallam risaala loo soo dhiibay diin baa lagu soo dajiyay waxa waaye dadka bini aadamka ee dunida ku nool siday u dhan yihiin ayun baa lagu yiri risaalada iyo waxa waaye waxyiga iyo manhajka rabbi subhanahu wa ta'ala gaarsiin masalada waxa waaye risaalada nabiga loo soo dhiibay afar qaybo afar hawlood ama afar amaano ayay ka koobnayd mid koowaad inuu dadkii fariintii risaaladii loo soo dhiibay inuu dadka gaarsiiyo waxa weeye oo tawxiidkii iyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala inay waxidaan iyo manhajka rabbi subhanahu wa ta'ala inay qaataan fariinta ama dhabaalka dadka inuu gaarsiiyo oo qaybina ay bishaaro tahay qaybina ay waxa weeye digniin tahay mid bay ahayd
midda labaadna waxay ahayd madmuunka risaalada iyo ahkaamta iyo akhlaaqda ku jirta inuu dadka baro waxa weeye dadka dhexdoodana nabiga sallallahu alayhi wasallam uga sameeyo dad culimo ah ee waxa weeye barito iyagu waxa weeye mas'uuliyadda kadib kisii guta ayadana mas'uuliyad labaad bay ahayd مسؤولية سدحنا وحيد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إنه وحويه رسالة وجودنا أيه ويودتك جارسينا أيه إنه النبي صلى الله عليه وسلم وأفره والنبي صلى الله عليه وسلم وتمهيديه دولك أي كش قاين لهيد أو الرسالة الدين تاي منهج كايدتك قاطع يكون ولا لهيد إنه دولك ودي عريبة هيد مسؤولية أفرادنا وحياه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إنه ودي عريه دولتي النظام كي سياسي جها دولك وحويه الرسالة الإسلام كنا شيء أو دتك مسلمين الرسالة قاطع كنا لهين وحويه نظام كي وحويه الدولة حكومات السياسة أمان قليل لها أو وحويه معمول لها وأقاسم لها لكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عفرت المسؤولية دود سوى حويه النظيف أو حويه هو الجدشات تيار كل سنة أيها رسولك صلى الله عليه وعلى وسلم وجتي لهذا نقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أدى أمانته ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة دي وجتي مضمون كذي أحكامتي أخلاق دي كجرتنا دتك وبري دولك الرسالة هي دتك الرسالة أقبلي المؤمنين تكون ولا لها إنه وفري نظام كي وحوي دولك يا دتك إلى لها الدولة هنا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقول سي إنك مركب وحوي مسؤوليات بان صارا سيدا تان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صارنا إذا يفرق بدنيد نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم ولها الجميع وقت وقصوا بحي إنك أنا وحوي نلقد بون إن نولها الجنة وأن وقصوا بحنو مسؤوليات كمرك يا إخواني في الله نصارا وحكم ذا مسؤوليات ده وحوي dadkeena waxa weeye waalidiinta ah oo Rabbi subhanahu wa ta'ala uu aabayaasha iyo hooyayaasha uu ka dhigay waxa weeye mas'uuliyaadkooda saaran ee amaanada ku ah ee Rabbi subhanahu wa ta'ala waxa weeye hadii ay gutaan dad umana ah oo amaanadii gutay ay noqonayaan Rabbi subhanahu wa ta'ala u tixgelinayo haday waxa weeye gudan waayaan ay khawana noqonayaan mas'uuliyaadkoodii khiyaanay waxa kamid ah caruurta ay dhaleen ee aabayaasha iyo hooyayaasha u yihiin inay tarbiyadayaan حويه إن التوحيد كرب سبحانه وتعالى أي كبر باريان عبادات رب سبحانه وتعالى كل جين عبودان أي كبر باريان محوها يشيء أمانات كسارا يوحى اللودي بين حفظان أي كبر باريان مجتمع كليه بلشده كلا عرورته inay maxay ay ixtiraamaan oo tixgeliyaan ay qadariyaan inay ku barbaariyaan bi'ada iyo nolosha guud ee bulshada inaanay fasahaadin oo aanay fasaad iyo xumaan iyo kharbudaad inaanay gaarsiinin in lagu barbaariyo muslimiinta inay xiriiriyaan oo dadka ahlul iimaanka ay jeclaadaan oo dadka muslimiinta ay walaal la noqdaan oo ay hiil iyo hool la wadaagaan in lagu barbaariyo kuwa ahlul kufriga ah gaaladana inay nacbaadaan oo aanay hiil iyo hool la wadaagin oo ay waxa weeye bari ka noqdaan yaani in lagu barbaariyo qaraabada in la xiriiriyo in lagu barbaariyo nidaamka nolosha haduu yahay nidaamka qoyska iyo midka madrasada iyo midka masaajidka iyo midka shaarica iyo midka jidka iyo midka waxa weeye goobaha ganacsiga ee ay la tacaamulayaan inay ixtiraamaan oo ay nidaamka ilaaliyaan oo ay nidaamka fasahaadinin in waxa weeye caruurta waxaas oo dhan oo wada mataalib ruuxiya waxa weeye in lagu barbaariyo sida jasadkoodaba loo korinayo oo waxay cunaan iyo waxay cabaan loo siinaayo ayuunba ah amaanada saaran dadku haday aabayaal iyo hooyayaal ay noqdaan nooca labaad ee amaanada ayna saaran inaan gudano nala ka rabaa waxa weeye amaanatul xifaad ala al-ahl والمحارم من النساء انتنا وحوي الرجعه ورب سبحانه وتعالى وقوامده iyo hogaanka qoysaska u dhiibay waxa amaano ah ina saaran inaanu ilaalino ahalkeena xaasaskeena iyo dumarka inaga maxaarimta inoo ah inaanu dumarkeena yaani maxaarimta inoo ah xaasaskeena iyo hooyooyinkeena iyo walaaladeena iyo habaryaraheena iyo gabdhaheena iyo waxa weeye dumarkeena maxaarimta inoo ah inaanu ka ilaalino waxa weeye fasaadka iyo wax walba oo xumaan ku ah oo cirdigooda iyo sharaftooda iyo karaamadooda dhaawacaya marka ugu dambeysana inaga ragga ahaa cirdigeena iyo sharafteena iyo karaamadeena dhaawacaya inaanu waxa weeye ku baraarujino cifada iyo xijaabka iyo ihtishaamka iyo dhowrsimaadka inaanu barno waxa weeye inay noqdaan dad dhowrsoon oo dumar ah oo ragga ajaanibta ka aan ku dhaxmilmin
inaanu waxa weeye ku tarbiyadayno ku baraarujino ku wardiyayno inaanay tabarruj iyo sufuur samaynin iyagoo qaawan inay waxa weeye duurka iska tamashleynin oo meeshay doonaan aanay iska marin iyagoona maxaarimi la soconin inaanu mar walba u naseexayno oo waxa weeye aanu ka hor istaagno iclaamkan iyo muxuu ahaa warbaahintan dhaqamada xunxun waxa weeye fidinaysahay iyo waxa weeye hay'adahan tansiirka iyo gaalaysiinta wadaahay inay gabdhaheena maskaxda ka qabsadaan akhlaaq xun iyo dacaara iyo qaawanaan iyo waxa weeye tabarruj iyo sufuur inay baraan dabeetana waxa weeye ay duurka iska tamashleeyaan cirdigooda iyo karaamaadkooda iyo sharafkooda iyo diintooda inay baabaado inaanu noqono inaga ragaahi kuwa dumarka maxaarimtooda ka masayra oo xumaan inay dumarku maxaarimtooda ay la noolaadaan marnaba aanan aqbalin oo ka masayra oo waxa weeye dareenkoodu marnaba aanu aqbalin inaanu u saciino inaanu dumarka maxaarimteena kafaalo qaadno oo duruufta noloshooda aanu dhabarka u dhigano si dantu aanay ugu kalifin inay baxaan oo suuqyada aadaan oo arzaaq raadiyaan oo ay biil raadiyaan ama waxa weeye in waxa weeye akhlaaq xumi ay ku kalifto inay arzaaqdooda iyo noloshooda la halgamaan waa amaana inaga nasaaran inaan duruufahooda xalino tawjiihaadkooda iyo tarbiyadayntooda iyo waxa weeye hagaajintooda iyo waardiyeyntooda iyo xafidaadooda inagu inaanu qaadano amaana rag saaran weeye amaanada nooca saddexaad ee nasaaran waxa weeye waa amaanatu dacwati ila Allah amaanadaas rag iyo dumar baa saaran tahay dadkeena muslimiinta ah inaanu gudano amaanadii nabigu sallallahu alayhi wa sallam uu gutay markii nabigu sallallahu alayhi wa sallam uu geeriyooday nabiga rabbi subhanahu wa ta'ala uu ila al-malaa ila u qaatay wixii ka dambeeyay amaanadii ahayd in diintan loo gargaaro oo diintan muxuu ay sheeg la fidiyo oo dadka diinta la gaarsiiyo oo xumaanta diinta ka soo horjeeda dadka laga la dagaalamo oo waxa weeye dadka ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu xiro oo dadka shaytaanka iyo fisqiga iyo fujuurka dadka laga soo celiyo oo waxa weeye diintan iyo dhulkeeda iyo dadkeedaba la difaaco oo la maal geliyo wax walba oo waxa weeye ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa waxa weeye difaac iyo muxuu ahaa ay sheeg iyo daryeel u ah waxa weeye amaana dhamaanteena saaran weeye inaanu noolayno shacaairtii diinteena oo waxa weeye aanu diinteena iyo shacaairteedii siday ku noolaan lahayd aanu dhamaanteen u wada geeyfano amaana saaran oo gudashadeena la ka rabo weeye meelaha diinta rabbi subhanahu wa ta'ala lagu barto inaanu noolayno oo aanu maal gelino oo aanu kharashaad ku bixino amaana inaga ina saaran weeye waxa soo dhan marka waxa weeye waa amaanadii nabigu sallallahu alayhi wa sallam inaga uu nagu dhaafay gudashadeedana waxa weeye dadkeena waxa weeye qolo walba qarniga iyo ahdiga ay nool yihiin iyagu ay mas'uul ka yihiin amaanada nooca farada ina saaran ikhwaani fillahi waxa weeye waa amaanada shaqada in badan oo inaga naga mid yihiin dad kale ayay shaqaale u yihiin oo ay xuquuq ka qaataan oo shaqo u qabtaan waxa weeye dadkeena shaqeeya oo waxa weeye muassasaad dad kale leeyihiin ama dad kale madax ka yihiin u shaqeeya in badan waxa laga yaabaa inaynan fahamsanayn shaqada aanu kula heshiinay dadka inaan u qabanaaho inay tahay amaana nala ka raba inaanu gudano ilaahay dartina subhanahu wa ta'ala inaanu u ilaalino amaanaadkeena saaran bay ka mid tahay inaanu ilaalino shaqada aan qabanayno tayadeeda inaan ilaalino shaqada aan qabanayno waxa fasaadka iyo khalalka inaanu ka ilaalino shaqadu inay noqoto shaqo xaqiijinaysa ahdaaftii iyo ujeedooyinkii ay muasasada aan u shaqeynahay kala hayd waxa weeye inay shaqadan qabanaynahay u dhacdo hab waxa weeye aan muasasada ku kordhinaynin kharashaad iyo waxa weeye oo aan u keenaynin mashaakil waxa weeye aysan ku qasbanayn muasasadani inaan mar walba ilaalino effectiveness-ka iyo efficiency-ga shaqada waxa weeye aanu dadka kula heshiinay inaan u qabanay amaanayna saaran weeye inta waxa weeye shaqooyinka nala kula heshiiyay waqtigooda aanu kala gaasirayno ama tayadeeda inaan dhamaystirno nafsadeena waxa weeye ay noo diidan tahay amaanadii shaqo maynan gudanin inta waxa weeye shaqadeena waxa weeye ay kharibaad ku jirto ama waxa weeye ay dhalayso maasaad iyo mashaakil waxa weeye muassasaadku aan u shaqeynaanay ku qasbanayn waxa weeye amaanadeena shaqo maynan gudanin waa amaano wadiifiya oo qofka muuminka saaran amaanada nooca ugu dambeeyaan ku khatimayana saaran waxa weeye waa amaanat as-salahiyya al-idaariyya dadka wax maamulo qudhooda waxa saaran amaana ah in ay ilaaliyaan hawsha maamul oo ay hayaan
inaad wax qorshayso qorshahaagana waxa weeye aad ka taxadarto inuu noqdo qorshe aan fasaad keenaynin aan xumaan keenaynin nolosha bulshada aan dhibaato u keenaynin nolosha shaqaalaha aan dhibaato u keenaynin mu'asasada ahdaafteeda u xaqiijin kara waxay ka dhigan tahay mas'uuliyadaadii maamul yani waxa weeye amaanadii maamuleed qaaday inaad gudato laakiin haddii qorshayntaada aadan ka taxadarin oo qorshayntaadu fasaad dhasho iyo xumaan dhasho oo tayadii shaqay loo baahnaday dhali kari weyso oo bii'ada iyo mujtamaca kale ay fasaad gaarsiiso تخطيطكاغا معنيه waxa waaye mas'uuliyadi ka saareed maadan gudanin mas'uuliyada waxa waaye tawjiiha dadka wax maamula inay shaqaalaha tawjiihiyaan oo shaqaalaha ay akhlaaq fiican ku beeraan oo muassasaadka ay hogaamiyaan muassasaad dhaqan wanaagsan ay ka dhigaan amaana saaran ee laga rabo iyaga inay gutaan weeye go'aamada ay qaadanayaan dadka wax maamula waxa dadka wax maamula waxa la wasaanic yani isheeg yani saanic qarar way qofka duu mudiir yahay oo maamul yahay waa go'aan qaato weeye marka go'aamada aan qaadanayna inay go'aamo xalaal noqdaan go'aan aan cidna dulminaynin aan yani cidna xaq ilaahay ka xarimaynin cidna aan culays waxa way xaq darro saaraynin inay go'aamada maamul aan gaarayna inay noqdaan waxay ka dhigan tahay inaan amaanadeeni maamul inaan gudanay laakiin hadii go'aamadeena ay tacassuf iyo amar ku taaglayn iyo xadgudub iyo dhulmi iyo cudwaan ala xuquuq الغير ku dhisnaadaan macnaheedu waxa weeye inaynaan gudanin mas'uuliyadii waxa weeye maamul ayna saarnayd markaan wax kormeerayno oo waxa weeye raqaaba idaariya aanu sameynayno mas'uuliyad baan saaran habkan wuxuu kormeerayno iyo qaacidada wax ku kormeerayno iyo toolka aan waxa weeye controlling ka u isticmaalayno iyo waxa weeye nataa'ijta ka soo baxda raqaabadeena iyo kormeerkeena iyo dabagalkeena maamul sida aan go'aamo uga qaadanayno oo khaladaadkii wixii aan soogaanay aan dib uga saxayno inay cadaalad ku dhisnaadaan oo tooliska la isticmaalayo tools veer ah oo cadaalad ku dhisan ay noqdaan waxa weeye waa amaanadeeni maamul oo ayna saarnayd oo aan gudano ayun bay ka dhigan tahay dhamaan waxa weeye yaani qawaacida maamul ee isticmaalayno iyo systemka iyo theorieska maamul ee wax ku maamulaynaho inay noqdaan kuwa mu'assasada u danaynaya oo interestigeena shakhsiga ka shaqeynaynin ee waxa weeye mu'assasada aan hogaaminayno iyo amalka iyo shaqada aan maamulayno yaani ujeedooyinka targetiski laga laha gaarsiinaya waxay ka dhigan tahay inaanu mas'uuliyadeeni iyo amaanadii maamuleena saarnayd si sax ah inaanu u gudanayno cagsigeeduna waxa weeye wuxuu muujinayaa xumaano wuxuu muujinayaa inaynan amaanadii iyo mas'uuliyadkii maamuleena saarnaa inaanu dayacayno waxaan ku khatimayaa aragtida amaanada yaani waxa weeye nabiga sallallahu alayhi wa sallam naga siiyay waxa weeye ala كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وحاول قف البو يدينكن كميده مسؤوليه iyo xil qaada waxa weeye yaani amaan qaaday raaci weeye waxba la raaciyay wixii amaanadii loo dhiibay wixii la raaciyana waa la weydiin doonaa su'aalaan ma dhici doonto marka meeshan ku qulan ku gunaanada waxa weeye waxa oo amaanaad ah iyo in ka badan oo xalaqada aanan wada taaban karin ka wada gaari karin waa amaanadeena saaran gudashadooda nalana weydiin doono oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala hortiisa nalo kaga xisaabin doono wafaqani Allah wa iyaakum lima fihi alkhayr was-salah fi ad-dunya wal-akhirah wa jazakum Allahu khayran والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك